أري إلا كل شيء وهذا قلت لي مسبح مويدا وسبيدي كده أنا على سيل هوية ذا كيالي سيل كي هوية ذا كشكنيو يسوع ملهم إلا كل شيء حاري كده أرنا سيل كي هوية ذا نوع شكنيو تنوع شكني سمل مرحبا كده بالوا خاص بالبيدي باتي بالهرجيس صار عبل والله بالله الله اللي بعد اللوك لترى والله هرجيس ما خنيسيتات ما دلقولي حمر بضع قصة قادم بر إلهي بانك هذا نعنع باقوله وصاتي حدات ماتو إلهه أودي أرساق ده اسمه كنوش الجوجل ناقوس هرجيس اللي نطول معه وفن كانت ليندنا أنت كنت بتشيني سنة كده هبار بعد قبطان كانوا يمنا ميرا هذا كواله شوي الله قص عر الدولة إنك هذا كاريبو ورعيدن واحد مقالة تجوال كات كشو كي كاسو سارانة كي كاسو سار أنا الله ديران مقالة دي تجوال حتى ديك الله بتو سيرة إيجا شعبا كرسي والله وبلا الله يبانن نروح كوسي ديني بون كوبينا والله وبلا الله لايف يعني أحلى سؤال قلي يعني عتم إصابت هذا يو نولي واحد اللي هو أركنا معاه أنت بدن وحكى لما يعني وعدت كهذا أصلا مقشين ودليرadaas oo qaar celebrity ay ku jiraan qaar ciidan ay ku jiraan qaar dhalinyaro oo mas'uuliyiin ay ku jiraan oo dheer Soomaaliland ah oo aan la soo wada garanaya oo maxaa la yiraahdaa codadkaas ay soo duubaan aniga taas oo hadlayaan idinku jeedeen marka nin dhalinyaro ah qof celebrity ah oo qof mas'uul ah markuu aniga codkaas ay soo duubo yaano dhalinyaro 20 jir wax iga dhici karto waa wixii 20 jir ka dhici jiray ama nin dhalinyaro ka dhici jiray asxaabay marka waxa waaye saa ula socda وين سلام أصحابي دمانتين ميل بأجوبتان صومالي وين ميل بأجوبتان وصاحبكي شرم بوي صومال انت لغة صومالك وهذا شو ميل بأجوبان دمانتو الله والسلام عليا أصحابي يورتو حالين شيقايا حالي لايف انستغرام وصوغلي لايف كاسنا ما عن لايف كي محالي هذا عن ريال لايف مين ولايف كي لبعض عن صوغلو markii labaad oo aan leef soo galno waxa waaye waa markii labaad oo aan leef soo galo hadana labada marba aan wax aniga ahaan i fiicnaan oo aan labada marba aniga ahaan i wanaagsaneen aniga ahaan wax fiican ahayd marka hadda codad badan waa jiraan oo codadkaas kale hadda aan maqasheen ama codadkan hadda aan maqli doontaan ahayn oo dhalinyaro badan wixii noo qorsan hadda cid og ma lahan waan soo aflagaadiyaa waan soo caaya anaga hadda iska heesno waxa waaye inta commentigaas caadi wanaag noogu soo qorto waxa ka badan inta anaga soo caayso waxay ka soo tageen commentiga YouTube ka soo tag TikTok ka soo tag waxaan la isticmaalo programme oo dhan application ka soo tag WhatsApp keena dhaxmareysa WhatsApp ki dhaxdiisa hadal caay oo aflagaada ah lagu soo duubaya waa lagu soo caynaa dad asxaab badan oo aad waxba ka hadlayna ku soo caynayso aad waxba u dhimin hadda ani waxa jirtay soo argeysa dara ayaan dhooto soo qaaday cid aniga heestaas aan kala tastamalaan cid aan markaan sameynay aan go'aan ka weydiistay malahan waxa waaye argeysa oo dhul Soomaaliyeed dhowr mar waxa la yiraahdaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan oo soo heeseen aniga meel walba ee Soomaali degtay inaan u heeso waa waajib saaran maadaama aan fanaan Soomaali weyn oo dhan u dhaxeeya ahay okay fanaanka suku aniga madaxweyne Soomaaliyeed ma ihi waxa la yiraahdaa Sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun ma ihi ما رتينين أو دنيارها أهل باتن جر لباتن جر وحي كدعان ويقدع يعني من البول لبات فنان يمرك حق الله دقو إلا باتن جر وحي كدع يقدع وحوا دنيار بدن أو أفل إسوا أفلقات يسوي جران أنا جالس ترجيس مركان سمينا إلا بهبينا يبقاوت هذا هن مرتماهن هذا هن حوا أنا هستو هن كل شيء لحد هو يفهم كيني أي مرتوى صادهن إسوا أفلقات ديان لكن أيضا مرتهن أنت أوجدين بلا حكمة ده أنا إلا بهبين وقت قاعدت أيضا سياسة تاع فرح لقلي Somaliland أو حوالها سياسة ديريس أو إسكت حاجة الدولة أو جافر ترى أيضا جرتها أوجا حتى واحد بو ما نكره على كSomaliland أنا مقدشوا محلي هذا قعنتي تقول وهاس وقاضي وحواي والإيسو قفي والإيسو عاي بدن يراه وحواي محلي مدو ما نرجس أنا ما هذا كليه وبفنانين ويسا فنانين تودن هركيسو فنانين Soomaaliyeed أنا كم داعي وأنا ويسا أنا هركيسو أوكي هيس هذا دينعنا فنك هاد محلي هذا دينعنا أمانك وحي أي وحيين أو كشيء أوكي وحي كسوت تجين أيضا تاس يسيجرتو عدد بدن وهذا يرتان حتى شن بقول إيجارا عند اللي يراني سوى في الجدي وعدد بدن يجران
haddana saas oo ay tahay waxa waa ani waxay ila noqotay in Somaliland oo dhan ay soo wada aflagaadisay dhalinyarada oo dhan ay soo wada caysay Somaliland oo dhan ay soo aflagaadisay ila noqotay mideeda kale xalayto live Instagram ka soo galay xataa waxaan ku aflagaaday reer Puntland ayagana ku jireen labadooda wax maan reeban aflagaado ma aragtay kulli anu marada tiimare ahayd inay ga dhacdaan waa ogahay anaaba inta ku fadhiya hadda inta ku fadhiya tiimare ahayd oo madaxa ay saarneed ee awalba Soomaaliya ayada ay saartay madaxa ay saartay oo madaxa ay saarneed inay ga dhacdo waa ogahay sidii ciyaalkana waa hadle nin weyn meesha laga rabayna maxaa la yiraahdaa maan tagin oo maan sameeynin saasoo ay tahay wax qalad laga galo ilaaha weyn waa cafisana la weydiistaa ilaahayna waa qafuur raxiim oo hadduu cafis weydiisto oo mar walba gacmihiisa u furan yihiin umadiisa marka hadda aan bini aadan aan qalad galay oo aan u gafay bini aadankan waa kuwa aan ku dhashay aan ka dhaxdashay aniga Soomaaliya oo dhan waa isoo kaamid meel walba ay joogaan waxaan idin sheegayaa wax walba aan aniga sameeyo shakhsi ahaanteyda ka sharma ahaan taageero waan leeyahay taageeraan laakiin maxaa la yiraahdaa waxay ugu taageeraan af iyo maxaa la yiraahdaa intii wax walba aan sameeyo oo sharma ahaan aan u sameeyo waa wax aniga karaankeyga aan ku sameeyay waa wax aniga fikradeeda aan ku sameeyay waa wax hadaan rabo aan u dhafro waa wax hadaan rabo wax wiligeedii xirfad ku fadhin laakiin wujuudii aan galiyay aniga ka dhalinyaro ahaan inta wax qabad la'aan aniga la joogi lahaa dalka ama aan wax qaban hadaan wax baran waxbarashaanaysan taariibno ay furan tahay wax walba ay furan tahay wadada ay furan waxay ahayd inaan maxaa la yiraahdaa fankaas oo aan isku arkaan wixii taas inaan sameyn karo waxaan ay sameynayaan fanaaniinta waxaan sameyn karo inaan taan isku arkay horta live-ki labaad aan soo galay waa kii kooreyna Facebook ka soo galay asigana dadan ku aflagaadeynay kan live-ki labaad oo iixigu ahaa waxay iga dhacayna Soomaaliya oo dhan way ogtahay dad badan inay ka wada gubanayaan waa ogahay waxaan ku hadlay aniga waan ka guban lahaa laakiin waxaan dalbanayaa oo aan weydiisanayaa oo mar labaad mar saddexaad mar afraad aan weydiisanayaa Soomaaliya meel walba ay joogto iyo Somaliland iyo maxaa la yiraahdaa Puntland inta aan u gafay waxa live kaas aan soo galay wixii iga dhacay oo ciyaalnimada hal iska ka afiya hadii macquul tahay raaligelin baan ka bixinayaa mideeda kaleeto waxaan rajeynayaa in dib dambe waxaan u dhaceenin mar dambena aysan dhaceen qalad noocaas oo kaleeto aniga qaladku waan galay nimayahow dhalinyaro ana waa ay 20 jir ah marka hore imaamada idinka ay ugu tuurteen hadana imaamadiin idinka la deey karo kulli aniga ninka qaladka gala waa kana sharma boy ahaan aniga waaye inaan hor fadhiyo hadaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yiraahdaa qaladkaas maxaa la yiraahdaa garab iguma siin qofna kama dambeeynin oo saasama iguma dhihin aniga iyo maxaa la yiraahdaa dulqaadkii inta oo ka xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragtay aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan ku soo celaa idin sheegaa waxa xalaq oo ku hadlo dhanay wada qalad ahaayeen hadal nin raga 20 jirde intuu geedka boodo talaka boodaa leeyahay maama hore Soomaaliya oo tirwaa aniga talanka boode meesh liiga filayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa Soomaaliya meel buu joogto khaasatan inta aan xalatooda u gafay dhamaantooda nimayo in la cafiyo raaligelin ma dalbanaya fanka Soomaaliyeed iyo wixii fanaaniin ah iyo wixii fan sheegto dhamaantoodana ayagana raaligelinta xaqooda ku jirta maadaama fanki aan la sheeganayo fanaan aan la ahay ayagana waa raaligelinaya meel walba ay joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed gafka xal iga dhacay waayo qabiilan ka hadlay qabiilna waa wax ugu xun maxaa la yiraahdaa qofka imaamada uga dhacdo aniga nin qabiil hore looga ogaamay nin qabiil ka hadal jira ma ihi nin qabiilkiisa ku soo dhax karo ma ihi Soomaaliyeed intaan ku soo leekaaday qabiil inta kuma soo leekaanin waxa idin leeyahay Soomaaliyeed meel ay joogtaan qaladkii haliga cafiyo qaladkeena waa qirtay waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cid aan wax u qabo ma jirto